Assalaamu calaykum waraxmatullah. Ku soo dhawaada barnaamijka xogta dunida, kaasoo jimcaale inoo noqon doona haddii uu Rabbi raali ka noqdo. Waxaana alaaba ku soo qaadan doonaa wixii isbuucaasi dhacay ee ugu waaweynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona Mareykanka uu walaac ka muujiyey sii fiditaanka dagaalka gobolka Tigreega ee Itoobiya. Faqri iyo Rajabeel oo sii hurinaya qalalaasaha Koonfur Afrika. Argentina oo ku sii badanaysa kiisaska coronavirus. Taliban oo qabsatay magaalooyin waaweyn oo hor leh iyo cunsuriyadii lagula kacay ciyaaryahanadii u dheelaysay xulka England. Ku soo dhawaada iyadoo intaasi ka balbalaaran. Haddaynu ku horeyno dhanka Koonfur Afrika, rabshadaha xooggan ee ruuxaya Koonfur Afrika waxaa horseeday sinaan la'aanta dhaqaale iyo saboolnimada iyo sidoo kale siyaasadda waddankaasi ka jira. Sida ay falanqeeyayaashu soo warinayaan, ilaa 200 oo xarumood iyo goobo ganacsi oo wax lagu iibiyo dalka oo dhan ayay rabshadaha saameeyeen. Badankood waxaa lagu qasbay milkiilayaasha iska leh goobaha ganacsi inay xiraan. Koonfur Afrika waxaa soo food saaray qalalaasii ugu xumaa muddo 10 sano ah, iyadoo mudaharaadyada looga soo horjeedo xariga madaxweynihii hore ee Jacob Zuma ay horseeday rabshado sii kordhaya iyo bililiqo baahsan. Ugu yaraan 72 qof ayaa ku dhimatay 6 maalmood oo isku xiga oo rabshado iyo qalalaaso iswata oo u dhexeeyay booliska iyo mudaharadayaasha. In ka badan 1200 oo qof ayaa ilaa hadda loo xiray rabshadahaasi. Rabshadaha iyo bililiqada ayaa ku sii kordhaya Koonfur Afrika, waxaana markii hore ku bilowday mudaharaadkan isu rogay rabshada. Mudaharaad looga soo horjeeday dhigitaanka ama jeelka loo taxaabay Masar Zuma maalintii Jimcaha ayadayna soo dhaaftay. Madaxweyne Ramaphosa waxa uu geeyay 2500 oo askari Gauteng iyo KwaZulu oo ah labada gobol ee sida xooggan ugu socdaan rabshadaha si ay u caawiyaan booliska oo aanan awoodin inay wax ka qabtaan fowdada socota. Kumanaan meheradoood ayaa lagu qasbay inay albaabada u laabaan xarumahooda cabsi laga qabo rabshadahaasi. Mareykanka ayaa walaac ka muujiyey wararka ku saabsan fiditaanka dagaalka ee gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya. Halka ay Addis Ababa xaqiijisay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto weerarada mucaaradka. Danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ku sheegtay dagaalada sii socda waxa ay kaliya horseedi doonaan silac iyo geeri. Waxayna ugu baaqday dhammaan dhinacyada isku haya inay si degdeg ah u oggolaadaan xabad joojin iyadoona loo marayo wadahadallo iyo xal siyaasadeed. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka dhawaajiyay inuu soo afjari doono xabad joojinta halka dhinaca ee dowladda ka wado gobolka Tigray. Abiy wuxuu ballan qaaday inuu iska caabin doono weerarada cadowga, wuxuuna ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka: waxaan iska difaaci doonaa oo aan iska caabin doonaa weeraradan ka socda dhanka cadowga gudaha iyo midda dibaddaba, iyadoona laga shaqayn doono dardargelinta dadaalada bani'aadanimo. Laakiin dagaal culus ayaa laga yaabaa inuu ka qarxo galbeedka gobolka Tigray. Maamulka Addis Ababa waxa uu sheegay in ay dhowaan xireen dhowr shirkadood oo ay leeyihiin dadka ka soo jeeda Tigray sababo la xiriira inay xiriir la leeyihiin jabhadda xoreynta Tigrayga oo ay dowladdu ku magacowday urur argagixiso. Argentina ayaa ku sii baahaya xanuunka coronavirus, waxayna noqotay waddankii 5aad ee Latin America oo ay dhimashadu gaartay in ka badan 100,000 oo qof, taasoo la xiriirinayo xanuunka COVID-19 maadaama ay waddanku u dhex jiraan kiisas coronavirus ah kaasoo ciriiri geliyey xarumaha daryeelka caafimaadka isla markaana ay ka sii dartay xiisado dhaqaale oo awalba la liitay. Wasaaradda caafimaadka ee Argentina ayaa sheegtay in dalku diiwaan geliyey 100,250 qof, halka kiisaska la helayna ay gaarayaan 4.7 milyan oo kiis tan iyo markii uu cudurka bilowday. Laakiin muwaadiniin badan ayaa weli la halgamaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dhibaatooyinka ka dhashay faafidda xanuunkani. Ku dhawaad 20 milyan oo qof kuna nool dalkaasi ayaa helay talaalka koowaad, kuwaasi oo 5.1 milyan ka mid ahina ay si buuxda u talaalan yihiin sida ay mas'uuliyiintu sheegeen.
Taliban ayaa la wareegtay maamulka degmada Wesh ee ku taalla xuduudda Afghanistan ay la wadaagto Pakistan, waxayna degmadaasi noqonaysaa tii ugu weyneed ee istiraatiijiya ee kooxdani ay qabsato. Muuqaal ay sii daayeen Taliban ayaa muujinaya calankooda cad oo ka babanaya halkii ay calanka Afghanistan ka surnaa ee iridda marinka xadka ee magaalada Wesh ee Afghanistan. Taliban ayaa maalmihii lasoo dhaafay qabsaday marino kale oo waaweyn oo dhanka xuduudda waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inuu kala baxayo dhammaan ciidamada Mareykanka bisha soo socota, waxaana ciidamada Mareykanku isaga baxeen saldhigoodii ugu weynaa ee Afghanistan 2 toddobaad ka hor. Saraakiisha Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Mareykanku uu diri doono diyaarado gaar ah dabayaaqada bishan si ay u bilaabaan daadguraynta ku dhowaad 2,500 oo reer Afghanistan ah oo turjumaan u ahaa oo hadda naftooda khatar ay ku jirto. Dhanka kale, ururka Taliban ayaa jihaad ugu hanjabay ciidamada Turkiga haddii ay sii joogaan Afghanistan, lamana oga tallaabada xigta ay Turkigu qaadi doonaan. Weeraryahanka xulka qaranka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa raaligelin ka bixiyay kadib markii uu ku guuldareystay in uu dhaliyo rigoore ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Talyaaniga oo Ingiriisku kaga qaaday koobka Yurub ee 2020. Rashford wuxuu sheegay inuusan marnaba raaligelin ka bixin doonin midabka uu yahay, balse uu ka qoomameynayo guuldarada. Ciyaartoyda kale ah Jadon Sancho, Marcus Rashford iyo Bukayo Saka ayaa baraha bulshada kala kulmay falal cunsurinimo ah. Saddexdaasi ciyaartoy ayaa ku guuldareystay inay dhaliyaan rigooreyaasha, waxaana aqbalaya dhaleecaynta la ii jeediyey gaar ahaan sida aan ciyaarta ugu soo muuqday. Rigoorihii in aan dhaliyo ayay ahayd, balse ma dhicin. Marnaba raaligelin kama bixinayo midabka aan ahay iyo halka aan ka soo jeedo, ayuu Rashford yiri. Tababaraha xulka Ingiriiska Gareth Southgate ayaa dhankiisa sheegay in midabta koorka lagula kacay ciyaartoyda ay tahay arrin aanan la aqbali karin, halka ra'iisul wasaaraha UK iyo xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay cambaarayeen falalka lagula kacay ciyaartoydaasi. Booliska Ingiriiska ayaa sheegay inay baarayaan falka cunsurinimada ee lagula kacay ciyaartoyda.